kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilhaantiin meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada telefishinka kaab iyo waraysi gaar ah oo aan ku lafa guri doono safarkii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu ku yimid magaalada Muqdisho oo ay madaxda Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha ay si diiran u soo dhaweeyeen waxa marti ah Mustafa Warsame Sabriye oo ah qoraa isla markaana ka falqooda siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan geeska Afrika iyo bariga dhexba sidoo kalena bartay xiriirka caalamiga Mustafa kusoo dhaw telefishinka kaab waa maasantiin oo ku dhawaa kaab TV Abiy Ahmed ay magaalada Muqdisho yimid madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ka tirsan dawladda ayaa si diiran u soo dhaweeyay inuu magaalada Muqdisho loo kala xiray sidee u aragtaa safarkaas runtii safarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa safarkii afraad oo Soomaaliya ku imaanayo laakiin way ka duwaneed booqashadani booqashooyinkii hore waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya inta la ogyahay madaxweyne ama dal darisi ah oo san galbinin ciidanka AMISOM oo wadooyinka qaar Muqdisho waa la xiray laakiin waxay ka duwaneed sida wafuud caalamiga loo galbiyo booqashada ra'iisul wasaaruhu waxay daarneed in la soo gabagabeeyo chapterkii dagaalkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo muddo hal sano socday kaasoo ka dhashay يعني markii la saxiixay heshiiskiisa afgarad ee Soomaaliya iyo Somaliland taasoo lagu siinayay qayb kamid ah badda Soomaaliya oo Somaliland ah mugdigaasi waxa lagu soo afjaray heshiiska Ankara oo dawladda Turkiga ay dhexdhexaadinaysay marka waxay ahayd booqasho halgelin ah oo xiriirka labada dal sare loogu qaadanayo imaanshaha Abiy Ahmed waxa loo helay magaalada Muqdisho goobihii caafimaadka goobihii waxbarashada magaalada inaa la xiray xitaa ganacsiyada iyo raalaamiyada waa la xiray madaxweynaha soo dhaweey hor darajada Abiy Ahmed oo wato ee ra'iisul wasaarnimo meeshan in xamse loo diray soo dhaweey runtii waa ka duwan tahay markii la fiiriyo darajo ahaan booska ra'iisul wasaaraha markii la dhaho Itoobiya wuxuu u qalmaa booska madaxweynaha oo madaxweynaha Itoobiya waa madaxweyne sharafeed hadda su'aal ahaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo kala ah waxa uu la barbar yahay ama la awood yahay madaxweynaha Mareykanka si title-kaas camal laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya si title-kaas camal u watay ma ahan marka in ra'iisul wasaare loo diro safarkii ugu dambeeyay madaxweynuhu Addis Ababa ku tagay soo dhaweyntiisa waxay ahayd heelka ugu sareeyda ee laba dal oo saaxiibtinimo ah marka darajadu ra'iisul wasaaraha Itoobiya wato waa darajada madaxweyne oo Itoobiya madaxweyne sharafeed ay madaxweynenimadu ka tahay dadka xashiiq u dabiyo Addis Ababa ku tagay waxa arkeen iyadoo taa magaalada Addis Ababa boorarkii iyo shaashadihii iyo wadooyin ku xirnaa iyo laga daaray soo dhow madaxweyne oo madax xashiiq si diiran loo soo dhaweeyay airportka roog cas loo fidiyay dad tiro badan isku yimaadeen anaga Muqdisho markuu yimid dad badan ka falceliyay qaabka loo soo dhaweeyay oo arkay qaabka loo sharfay inuu sumudneem runtii diblomaasiyadda markii la eegayo ama curfiga diblomaasiga ahi dalka saaxiibka iyo dalka cadawga ah soo dhaweyntu way kala duwan tahay maadaama heshiis laga galay Itoobiya oo soo dhaweyntu waa markasta waajib dastuuri ah oo dawladda loo marti yahay inay soo dhaweyso shacabkuna way ku kala aragti duwanaan karaan shacabkeenu inta badan uma dhul dooreen siyaasadda iyo waxa lagu heshiiyay inta badan qofka Soomaaliga markii dhaho ra'iisul wasaaraha Itoobiya wada loo xiray kii badeena qaatay laakiin ma ogo in la heshiiyay oo dawladda Soomaaliya dagaal diblomaasiyad oo hal sano soconay Itoobiya la galay oo Itoobiya hadda gargoortan ay taagan tahay awaltii hore waxay ahayd awoodaan wax ku qaadanaynaa laakiin hadda waxay rabtaa qaab diblomaasiyaysan oo ah qaabka Itoobiya ay ku gaarto wadamada dariska sida Djibouti oo kala in bad la siiyo marka shacabku waa ra'yigooda way qabaan qof kasta ra'yigiisa waa lagu ixtiraamaa laakiin qaabka soo dhaweynta waxay ahayd qaab iska normal ah oo qaab fiican ra'iisul wasaaraha loo soo dhaweeyay taasina waxay ka turjumaysaa saaxiibtinimada labada dal Itoobiya iyo Soomaaliya Soomaaliya muddo ku dhawaad 20 sano waa dhigi karnaa hadiisan ay ka badneenba waxa jooga ciidamada nabad ilaalina oo shisheeye Abiy Ahmed ay yimid waa ra'iisul wasaare wadan kale waay oo Afrika madaxda Afrika ama kuwa Asia ama kuwa Yurub markay imaanayaan xogto deegaan xalane oo dhulada Soomaaliya Muqdisho loo ajnabi u degan yahay ku soo deegaan halkaas lagu maamuusaa xitaa qaarkood fil Soomaaliya yimaadaan hada laakiin picture-ka ay bixiyeen muxuu yahay in Abiy Ahmed uu yimaaday ciidamada Soomaaliya soo dhaweeyeen shacab Soomaaliya soo dhaweeyeen madaxweynaha ka doonay garoonka madaxtooyada la geeyay
xeebtii liida la geeyey uu kusoo qadeeyey madaxda caalamka bigjar noocaysiinaysaa runtii dowladda waxaad u qabtaa qaabka soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha inay fariin diblomaasiyadeed ay bixinaysay maxaa yeelay Soomaaliya markasta wufuud caalami imaanaysa shacabka Soomaaliyeed dhibay ku qabeen tusaale ahaan ganacsiga iyo isku socodka waxaa dhici jirtay in muddo 2 bari magaalada u xirnaato laakiin qaabka magaalada shirkadka loo xiray waxay ahayd qaab fariin loogu dirayay wadamada dariska iyo caalamka loo tusayay Soomaaliya inay wufuud caalami inta booqato dhibaato aysan dhici karin wadooyin fara badan runtii Maka al-Mukarrama iyo meelo dhow maahane inta badan magaalada waa furneed fariinta dawladdu ay diraysa waxay ahayd in Soomaaliya tahay dal nabad ah oo wufuud caalamiga ay imaanaysay dadku waxay aad isku barbar dhigayeen 3 sano ka hor imaatinkiisii markaas oo madaxweyne Farmaajo hayay xilligaasi talada Soomaaliya fila Soomaaliya ciidanka AMISOM ayaa hayay dabaabaadka AMISOM ayaa lagu galbinayay laakiin way ka duwaneed hadda sida wufuudda caalamiga adduunyada loo galbinayay ayaa loo galbinayay oo baabuur badan oo dagaal kuma aanan arkin Maka al-Mukarrama oo ahayd jidka halbowlaha oo ra'iisul wasaaruhu marayay marka waxay ahayd dawladdu aad looga fakiray qaabka ra'iisul wasaaraha loo soo dhameeyay waxay ahayd qaab runtii fariin caalamka loogu dirayay iyo Afrika in Soomaaliya wajigii hore aysan ka duwan wajiga kale u yaalo baahinta Itoobiya waxay qorayeen xataa bigjarkii uu ku soo galay abiy xeebta leeda iyo qaabku fila Soomaaliya ku booqday iyo waxay arkayeen in future-ka Muqdisho Itoobiya kamid ay noqon doonto kale qaarkood qoray runtii wargeysyada iyo inta badan saxaafadda Itoobiya oo sida saxaafadeena kala ah waa ku kala aragtooyin booqashada ra'iisul wasaaraha dad baa u qaatay in xeebta liido markii la geeyo oo ahayd kaale xeebtaadii soo arag ah marka yani kala ra'yi duwanaanshahaas warbaahinteena uu ka jira oo dadka qaarkood u maleynayay markuu xeebta la geeyay la dhahay xeebta lagu wareejinayay laakiin waxay ahayd in la tusiyo fariin Soomaaliya loo diray ay ahayd oo diblomaasiyaysan qaabkii aad tasawirada u galeen labada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay ahayd fariin diblomaasi oo la diray oo ahayd in dagaalkii diblomaasi uu soo afjarmay oo hadda ka bacdi wada hadal baasho ay tahay waa gartay laakiin xashiq waxa ay u soo dhaweysanayo wuxuu rabaa inuu ka adkaado maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed soo jirtay iyo inuu ka adkaado Soomaaliland oo markeed uu badsiis runtii markii la eegayo siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo arrimaha dibadda dadkeenu aad isku qaldaan markii la joogo national level ama heer qaran Itoobiya iyo Soomaaliya runtii waa laba dal oo daris ah waa laba dal cadaawad soo jireen dagaalo fara badan iyo xasaasiyad dhanka bulshada ah yani laakiin aniga saan islaayahay aragtida madaxweynuhu uu qaadanayay waxay ahayd in Itoobiya la markasta laga tago hanjabadeedii iyo markasta Soomaaliya ku hanjabaysay in qayb kamid ah Soomaaliya ay qaadanayso laakiin in dawlad goboleedyada laga soo xiranay iyadoo meesha ku jirta oo xilligii hore madaxweyne Farmaajo aad loogu amaana inuu albaabada dawlad goboleedyada ka soo xiray xilliyada hore waxa dhici jirtay in haddii dawlad goboleed uu carooday in Itoobiya aadi jiray taasi xilligii madaxweyne Farmaajo ku amaananaya runtii waxa waaye albaabadu ka soo xiray wax kasta waxay ugu imaajireen fila Soomaaliya marka inuu taatiga madaxweyne Xasan Sheekh ciyaarayo oo ah khilaafaadka gudaha in Itoobiya in la heshiyo in qayb ka tahay in khilaafaadka gudaha la yareeyo oo dawlad goboleedyada dibadda u bixi jiray la yareeyo iyo galaangalkoodii marka ayadana waa dhici kartaa in ku hoos jirto ugu dambeyn marka East Africa أبي إثيوبيا كوميونتي إيست أفريقيا كوميونتي Soomaaliya u dambayso Soomaaliya dhawaan ku biirtay East Africa wali Urdan waaye in maanta Abiy Ahmed uu yimaado Muqdisho iyadoo madax kale oo East Africa ay tahay wali aysan imaanin taasoo soo gabagabeynaa bigjar noocaysiinaysa ayagana runtii ra'iisul wasaaraha Itoobiya booqashadiisu waxay ahayd booqasho halgelin ah inkastoo aad loo yareeyay waqti saacad yar uu joogay halgelin ayay ahayd subaxdii yimid dooradeen uu baxay laakiin fariinta ay diraysa waxay ahayd intaan heshiiska weyn ee la saxiixin oo dawladda Turkiga garwadeenka ka tahay in labada dalba booqasho lagu tago oo madaxweynuhu laba jeer oo Addis Ababa tagay marna wuxuu tagay shirki marna asaga la casuumay in hadana yani Abiy Ahmed Soomaaliya yimaado waxay ahayd heshiiska weyn ee la saxiixi doono in
lagu soo qalin duuga ahayd in yani gogol dhac ama horudhac u noqoto lana tuso caalamka in jabtarkaasi uu soo xirmay. wuxuu ahaa Mustafa Warsame Sabri oo ah qoraa isla markaana ka falqooda arrimaha dibadda. waxaan diradda ku saaraynay safarkii Abiy Ahmed uu ku yimid Ethiopia. waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga Mustafa. waa noomu cusub dhowr mar hore noo yimid idinka ku mahadsantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum. wararka warbixinada waraysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.